habeenkii saddexaad ayaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa ka dhacay mudaharaadyo xoog leh oo ay oogayeen dad gadoodsan oo ka cadhaysan dilkii nin ka tirsanaa madowga Mareykanka oo ku baxay gacanta ciidamada Blaiska. dadkaasi gadoodsan ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen saldhiggii ugu weynaa ee magaalada Minneapolis. waxa kaloo cagta la mariyay xalay iyo habeen hore goobaha ganacsiga oo aad u fara badan oo qaar badan oo kamid ay leeyihiin Soomaalida Mareykanku. warbixintan gaarka waxa noo soo diray wariyahayaga Deeq Darajo. dilkii isniintii askar ka tirsan booliska Minneapolis ay u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa waxa magaalada Minneapolis ka dhacay mudaharaadyo bilqa watay saddexdii habeen ee la soo dhaafay kuwaasi oo galaaftay hal qof dhowr dhaawac ah iyo hanti badan oo la burburiyay. ciidamada kaydka ee Mareykanka ayaa shaaciyay in 500 oo kamid ah askartooda ay haatan ku sugan yihiin wadooyinka magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul waxaana loogu baaqay in ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta magaalooyinkaasi. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah xilli ay magaalada ka jirto bilaqo iyo hubanti la'aan. dhanka kale waxa aad u sii xoogeystay mudaharaadyadii ka socday magaalada Minneapolis waxaana la arkayaa dadka oo careysan oo gubaya dukaamada isla markaana bilaqeysanaya goobaha ganacsi ee ku yaala wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Minneapolis. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo taageeray aragtida dadka gadoodsan markii hore ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in marka ay bilaqada bilaabato ay toogashada ciidamada bilaaban doonto. madaxweyne Donald Trump ayaa kuwa bilaqada iyo arbushka ka wada magaalada ku tilmaamay in ay marhabaabinayaan kacdoonka xaqa ah ee George Floyd. inkastoo shaqada laga eriyay askartii dishay George Floyd ayaa midkoodna wax dambi ah lagu soo oogin ilaa iyo hadda. taasi ayaana sababtay carada dadweynaha magaalada Minneapolis waxayna sheegeen in ay sii wadayaan mudaharaadyada ilaa laga soo xirayo askartii dilka geysatay. madaxa dambi barista deegaanka Hennepin Mike Freeman ayaa galabnimadii shalay sheegay in aysan ilaa iyo hadda haynin wax cad oo ay ku eedeyn karaan askartii dilka geysatay. sidoo kale FBI-da oo ah hay'adda dambi barista gudaha Mareykanka iyo xafiiska dambi barista gobolka Minnesota oo shir si wada jir ah u qabtay iyaga oo is-ilmeysiinaya ku sheegay in aysan wax caddeyn ah oo ku filan aysan haynin ilaa iyo hadda. dhanka kale madaxa ururka dhaqdhaqaaqa xuquuqda madowga Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Minneapolis isaga oo dadka kula hadlay meel fagaara ah una sheegay in cadeymo ku filan oo dambi lagu maxkamadeeyo ay xeer ilaalintu haysato. wuxuuna cilaamiyay mudaharaad ballaaran oo maalinta Sabtida ah laga dhigi doono gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan. dadka ayaa bilaabay in ay nadiifiyaan wadooyinka magaalada Minneapolis waxaana la kulmay AK Xasan oo laga soo doorto magaalada Minneapolis isaga iyo Soomaali kale oo nadiifinaya wadooyinka waxayna TV-ga Universal u sheegeen sida tan xaalada soo marnaa soo tirnay dhibaatooyin weyn la soo gaarsiiyay laakiin in la soo banaabax waa ogolnahay waa dadka inay maakano xaqooda inay raadsadaan ay u dabaldegaan مش أصابنا بعد لكن وح كورجنا إن دباتين للسوقر سيو صوبت ماشين عروة كل من كرت هذا كل من كرت قصارون وين السوقر يا دب كان عيادة وحنا هاي وحلقة حماضة ولقى حنا قواي هسه هات مظاهرات كهلا قبطوا مظاهرات إنها مظاهرات نوع حق وحق أولين هاي لكن إنسان فوش في المجال الله قال له جبي ما من هذا وحما ما فهمت هذا أنا واكل قرينا يا حق جمال كستوى لما رأي وحكستوى هجاجنا إن شاء الله بإذن الله الكريم. horta wallahi ma umaleeyeen yani misleyn insaan noqonaysa laakiin wax kasto waa wax la fila kar ma aha ya laakiin alxamdulillah aniga waxa aaminsanaanay aqar ilaahayna wax kasta kala wato marka haddana sida xalay waxyaalo badan oo waxa dhacay oo la yaab leh oo xaq daray maantana dad badan isku imaada wax nadiifinaya marka alxamdulillah ilaahay doo qaybtaas nagu soo daray hadda runtii waxa way Soomaalida magaalada degan waxa ugu baaqaya inay ka soo qayb galaan in maaragtay sida aragtida dadka kale oo deganay ama community kaleeto waxay caawinayaan in maaragtay magaalada aan dib u kilin gareyno oo maaragtay aan shacabka aan kamid noqono sida maaragtay dhibaatooyin badan Soomaalida soo gaartay ogtahay ninka la yiraahdo deeqow waxa kamid ah dhibaatooyinka Soomaalida soo gaartay maqaayada Xamdi oo aad loo jijibiyay maqaayada Quruxlo ayadana aad loo jijibiyay oo maaragtay naftigeeda dhibaato soo gaartay ninka miskiinka ah ee intaas oo saac ku lahaa Iblis waa dhimanaya bini aadamnimadana ma aha maxaan ku dhahay qof aqal la wuxuu sameeyay waxaas ma aha aad baa ugu xun ana xaafadda ma degani ma abris ma degani
waxaan ka New Brighton baa degana ilaa xal newskan ka arkay maanta carruurtaydii aniga waxaan inaan soo eegna bal wixii meesha ka dhacay wallahi magaaladu maanta sidii ahaan jidhay iyo hadda maanta say tahay aad bay u kala duwan tahay magaaladii burbur iyo wasakh aad u badan baa loo geystay dee awl magaalo qurux badan oo bilicley bay ahayd haddana dadkii iyo biyihii iyo dhalooyinkii iyo wasakhdii baas dhex yaacaya marka dee gacantaa shalay aan ku burburinay baa maantana aan ku dhisanaa koley dadkii maanta wuu isgartay dadkii dhan maanta way isku baxeen madow iyo caddaan maanta way soo baxeen dhammaan dadkii dhan Soomaalidii waxa u badnaatay maanta way soo baxeen waxay rabaan inay dhulkii ay nadiifiyaan duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa sheegay in aan la aqbali karin in aan weli maxkamad la soo taagin dadkii dambigaasi geystay ugu dambeyntii in ka badan 240 goobood oo ganacsi ayaa ilaa iyo hadda burbur iyo bilolqo iyo gubis loo geystay goobahaasi waxaa ka mid ah hanti badan oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo ay u badan tahay in aysan wax caymis ah ku jirin halka dadka boobka iyo dhaca geysanayana ee Soomaali ka dhex muuqato deeq darajo Universal TV Minnesota aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga deeq darajo oo goor dhaweyd warbixintaasi nooga soo diray magaalada Minneapolis wixii warara ee ka soo kordha mudaharaadada xoogga leh ee ka dhacaya magaaladaasi haddii alla yiraahdo waxaanu idinku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe